السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي kusoo dhawaada channelka Mila Cooking. maanta waxaan sameynaynaa malaay. hadda meeshan waxaan kusoo shubanay saliid ayaan kusoo shubanay. kadib weelka ayaan marmarinaynaa si fiican inay isku gaarto waa si ugu dhigin malaayga. mana ku badinaysid mana ku yareynaysid, qiyaas waad inuu ku shubtaa saliida. meeshaan hadda waxaan ku haysanaa baaquligan waxaan kusoo shubanaynaa barbarooniga budada ah, xawaaji cagaar oo 2 qaado ah, iyo waxaan kusoo darsanaynaa basbaas gaduud oo budada ah, wax yar basasha budada ah. waxaa kale ku daraynaa qaado hafkeeda cusbo ah iyo qaado hafkeeda oo kala food ah. hadeertan waxaan kusoo darsanaynaa 2 qaado oo kabsar caleen iyo tuun la isku shiiday. kadibna waan isdhexgelinaynaa, si fiican ayaan isku dhexgelinaynaa. markii aad si fiican isku dhexgelisid wax yar biyo ayaad ku shubaysaa, qiyaasna waa biyaha. halihii biyo waa nagu soo yaraadeen, haddana biyo kale ayaan ku darsanaynaa. kadib waxaan kusoo darsanaynaa liin dhanaan oo 2 qaado ah. liintan waxaa lagu keenaa caag, waa mid originalka ah. kadib waxaan ku darsanaynaa 1 qaado vanilada biyaha ah. kadib markaa sameyno malaay, hadda waan soo dhaqnay, waxaan ku shubaynaa wixii aan sameysanay aan ku kor shubaynaa, waana soo marmarinaynaa. si fiican ayaad isku dhexgelinaysaa, ma loo baahno inuu dhinac malaayga dhadhan ka noqdo dhinacna dhadhan la'aan ka noqdo. asxaabta waa kana sidaan ayaan soo dhexgelinay. hadeertan foornada ayaan gelinayna, waan dubaynaa. asxaabta waa kana sidaan qurux badan ayuu ku soo baxay. wax alla waa ku cuni kartaa. asxaabay adinkana tijaabiya, aad ayuu u macaan badan yahay, waad ka heli doontiin. hana iloobina like iyo share. mahadsanidin.